Arsenal oo heshiis hordhac ah la gaartay Benjamin Sesko. Arsenal ayaa u muuqata inay qaaday tallaabo weyn oo dardar leh oo ku aadan doonista ay u qabto weeraryahanka RB Leipzig Benjamin Sesko, iyadoo wararka ka imaanaya Jarmalka ay muujinayaan in labada dhinac ay horey uga heshiiyeen shuruudaha shakhsiga ah. Sida laga soo xigtay wargeyska Sport Bill, Gunners ayaa heshiis la gaartay weeraryahanka 22 jirka ah, taas oo calaamad u ah horumar laga sameeyay suuqa kala iibsiga oo maalmahan laga soo warinayay warar iskhilaafsan. Horaantii isbuucan, Bill ayaa soo warisay in aysan jirin wax wada hadal rasmi ah oo socda, balse warbixinta ugu dambeysay ee isla wargeyska waxay muujinaysaa in xaaladdu ay si weyn isu beddeshay. Inkastoo heshiiska lala gaaray ciyaaryahanka uu yahay guul muhiim ah, caqabada dhabta ah waxay hadda tahay in heshiis rasmi ah lala gaaro kooxda RB Leipzig. Warbixinno ayaa sheegaya in kooxda horyaalka Premier League ay hore u muujisay rabitaankeeda inay soo gudbiso dalab la jaanqaadaya filashada kooxda Jarmalka. Lacagta la sheegay in lagu heli karo ayaa lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 80 milyan ilaa 100 milyan oo euro, waxaase weli la sugayaa in qiimahaasi uu yahay mid ka dhashay wadahadal dhab ah ama uu yahay mid kooxda ay si xeeladaysan u sheegtay si ay uga faa'iidaysato suurtagalnimada heshiis dhaca. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii koobnaa ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo suuqa kala iibsiga. Haddii aad ilaa dhammaadka muuqaalkana la soo gaarta ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii shargarayso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.